ninka kan masaaxir baa oo falanfalownimo iyo dajaalnimo dadka ku soo jiitay dadku wax u samaynayana oo indhahay ka caafimaadeen ku hayo kuwa la soo heshiiyey ninka kan ee gacmaha dadka indhaha ka saaraya ee dhahaya indhihii baa ilaahay sababteeda ku shaafiyay oo dhagihii baa Allah u furay oo hadalkii baa ilaahay u furay curyaanimadii baa ilaahay ka saaray oo lugihii baa ilaahay u furay subxaanahu wa ta'ala masaaxir iyo jimin wuxuu la adeegsanayay dadkaas mise mucaali ku daaweynaya jirka iyo ruuxda quraanka rabbi oo ilaahay awleediisa karaamada oo ku ayido ayay arrintaani ka mid tahay cadaymo run ah oo dhab ah saddex aayadood buuna inta badan isticmaalaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wayda salaamaya walaalaha barakaysano kusoo dhawaada falcelintan walaalo badanna ay su'aal iga soo weydiiyeen oo ku saabsan ninka kan ma cilaajiye quraanka dadka ku daaweeya oo xaqiiqadiisu waa sidaas mise waa saaxir ama waa falanfalow ama waa dajaal beenaala kaasoo ku soo gabanaya diinta soo helo maal adduunyo dadka aan waxba aqoonno ugu dago inta wax ku sameeyana ay soo heshiiyeen si ay beentaasi dadka uga gadaan ninkan oo waayihii ugu dambeeyay Soomaalidu gaar ahaan kuwa qurbaha ay ku daateen oo raadiyeen waayo waxaynu ognahay dad badan inay xanuunsan yihiin xanuunada ruuxiga isbitaallo badanna ay garaaceen ay tageen dhakhaatiir kala duwan ay la kulmeen ilaa haddana ay natiijo kala kulmin waxaana hore loo yiri qof buu ka boqol u talisay meeshii markaa wax loogu tilmaamo qofku waa u ordaya ninkan markaa ayaa dad badan u soo ordeen asagoo sheeganaya inuu indhala'aanta daaweeyo dhagala'aanta uu daaweeyo curyaannimada uu daaweeyo qofkii curyaanka loo keeno hore uu ka soconayo muuqaalo dhowro oo xataa iska daa ajaanibta kale Soomaali ku saabsan aynu aragnay su'aalo badan markay dadku iska weydiiyeen muxuu yahay ninkan marka aragtidayda iyo intaan ka fahansanahay arrintan baa rabaa halka kan inaan kula wadaago أولاً مركو ugu horeysa muddo ku dhow 5 sano ayaa ninkaasi aqaanay bimacna barahan bulshada Facebook iyo YouTube-ka aan kala socdo barnaamijkiisa mutaabiciinay ninkani wuxuu u dhashay dalka Ciraaq gaar ahaan gobolka loo yaqaan Kurdistan oo qaybta Kurdida Ciraaq ay degto oo maamul goboleed madaxweyne leh oo aan wali ku dhawaaqin laakiin Ciraaq ka gooday laakiin wali ay Jamhuuriyadda Ciraaq hoos imaanayso balse maamul madax bannaan iyo nolol xoogaa degan ay leeyihiin Kurdistan buu wuxuu ku lahaa meel isbitaal aad moodid oo dadka lagu daaweeyo lagu quraan saaro Sacuudiga mar lagu xiray Sacuudiga muusa joogi jirin laakiin cimro iyo wax booqasho kale u tagay kadibna waxa la arkay magaalada Madiina asagoo dad daaweynayo dad meel isku soo imaanayaan la arkay oo waa la xiray balse saacada kadib waa la sii daayay kadibna waa uu iska tagay Yurub uu meel badan booqday sida Jarmalka laakiin hadda sida igu maqaalaa fadhigiisu waxa weeye dalka Turkiga ninkani marka waxaan rabaa in aan ka siiyo xog muhiim ah horta awalan sida ii muuqata waa nin saadiq ah ilaahay baa qofka og xaalkiisa sida gaarka laakiin daahirkaana wax ku miisaamayna waa nin saadiq ah bimacna waa nin ilaahay quraankiisa dadka ku daaweynaya tusaalaha iyo cadaymahan waa idin siinaya insha Allah ta'ala awalan marka ugu horeysa ilaahay quraanka qofku rabo fahansiya asraartiisa aayadaha kala duwan iyo kelmadaha kala duwan iyo suuradaha kala duwan kalaamka rabbigay uu ka kooban yahay asraartiisa kala duwan ilaahay qofku rabo fahansiya yu'til hikma man yasha ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا halka inuu soo galayaan anigu aaminsana oo waa nin ilaahay quraankiisa dadka ku daaweynaya saddex aayadood buuna inta badan isticmaalaa saddexda aayadood baana ilaahay asraar badan dhexdhigay ilaahayna uu fahansiiyay karaamooyin buu ilaahay ninkan siiyay sida aniga ii muuqata mucjiso ma dhigi karo leeyana mucjisada nabiyaasha iyo wixii ilaahay xaqi ka yimaado dadka caadadooda ka baxsan baa la dhihi karaa waa mucjiso laakiin karaama dhihi karna awliyada ilaahay ku saaqo qof tuftiisa ilaahay isla markii ilbirqsi qofku ku shaafiyo adeegsiga quraanka iyo asraartiisana ilaahay fahansiya jiri kara laakiin taa anagu ma fahansanino da waxaasi maana dhexgelinta quraanka anagu waardiyahan ka nahay أولاً نكاني إنه صناهين بيانالا أما الساحر أما الدد أوله شيء خيالي جاس أرنتا وقوته إنه صناهين واحد دليل دولة تركي قدقن معهن تركي قدقن معهن ودل فريدة وأنا ضلاد وضع قرنيسان تركي وحوش سي أبال مرين أما الشهادة الصرف تلماميسا إنه نكاني ددك كعافي مادية إلهي بعافي ماذا هي وحلو يقانو الطب البديلك oo dhirta iyo quraanka maartay hawlahaas uu dadku daaway shahaada sharaf u sidaas u sii
marka see u dhihi karnaa waa dad isa soo heshiiyeen ama waa dad isaana iyo xaggay ka dhacday iyo waa beenaale ma turkiga la gaaday waa marka koobaad marka labaad wuxuu ku lahaa markis weyn Kurdistaan qaybta Kurdida ee Ciraaq dawladda Ciraaq iyo maamul goboleedka Kurdida iyo hay'adaha hawraha caafimaadka u qaabilsanaa wada shaqayn baa ka dhaxaysay see markan dad laba xabo lala soo heshiiyay iyo waxaas ay ku noqon kartaa Sacuudiga lagu xiray saacada kadibna waa la sii daayay xarigiis hadduu beenaala dad la soo heshiiyay uu yahay Sacuudiga ma sii deyn lahaayeen maxkamadii ku soo oogi lahaayeen Soomaa annagu haddana og Sacuudiga arrimahaas inuu ku adag yahay dad meel isku imaanado dad badan iyo waxaas iyagoo aad u necab laana mahdi baa qof sheegan karaayo bala meesha ka dilaaci kartay fidno Sacuudiga arrimahaas oo ku adag gaar ahaan waxaan la tilmaamay hawlahan ama ayagu ku tilmaaman qaarkood khusacbalaad ama khuraafaad iyo waxaas ayagu haddana ku adag bay ninkaasi xireen saacada kadibna waa sii daayay hadduu marka beenaala dajaal oo yani jin la shaqaysto yahay ma sii dilay isla markiiba ayagu maxkamad ku oogin waa mid tan kale boqolaal muuqaal baa ku jira YouTube-kiisa oo 2 milyan iyo bar dhaafay subscribe intaas ma la soo heshiiyay oo jinsiyada kala duwan leh dadyow kala duwan leh dalal kala duwan ka yimid haddii ilaahay asraarta quraanka uu fahansiiyay annagu aan wali fahmin uu adeegsaday ilaahayna quraankiisa ku shaafiyay maxaa ku jaban anoo haddana aaminsan quraanka caafimaad ka horeeya kan dambeeya ma jiro wallahi alladhi la ilaha illa hu wa aaminsan quraanku caafimaad laakiin dhaqankeenu ma asaas afka waa aaminsanna waa dhahna laakiin hadda aaminsanaan lahay ilaahay baan ku dhaartay laba qof is haysata is jir lahayn waalid ilmihiisa ku caasiyo is jir lahayn nin xaaskiisa baxdal is jir lahayn ninkeeda ku caasiyo is jir lahayn dal burbursan is jir lahayn dhiigtaata is jir lahayn ilaahay baan ku dhaartay ganacsado dadka khiyaamo is jir lahayn dhakhtar dadka khiyaamo is jir lahayn no ilaahay marka hadii qofkii indhaha la uu ku shaafiyay barakadiisa iyo karaamo ilaahay siiyay tahay taana waa wax macruuf sharciga macruuf ku ah iyo fiqiga mushkilad ma laha dhakhtar ba qof intuu u yimaado indhala ama indhuhu ka intuu qalo qalin ku sameeyo daawo siiyo buu caafimaada taala lama yaabo qofkan ilaahay kalaamkiisa adeegsanaya rabbigii dhakhaatiirta iyo daawada kalaamkiisa qof adeegsanaya oo indhihi iyo dhagalaanta ilaahay ku shaafiyay intuu ku shaafiyay maxaa ku jaban qofku rabo inuu ilaahay ku shaafiyay maxaa ku jaban waa waxba anigu ninkaasi wax ceebo ma hayo malahana uma xumaynayo magaciisu waxa weeye ninkan dad badan ay khaldayaan Mulla Ali al-Kurdistani Kurdistan meesha ka soo jeeda waa Kurdi dadkii halyeeyda ahaa geesiyaasha ahaa aqliga badnaa buu ka soo jeedaa Kurdi ee gaaladii ama gubeystayaasha intay ka yaabeen ay dhaheen dadkan haday hal dawlad yeeshaan adduunkeeba qabsanayaan dawlada aan u qaybino qaar Ciraaq baa lagu daray qaar Turki baa lagu daray qaar Suuriya lagu daray qaar Iiraan baa lagu daray qaar yowm meel kale loo firdhiyay laakiin waa dad taariikh leh geesinimo iyo halyeeynimo leh dad badan oo caana islaamka dhexdiisana ka soo jeeda waxaana ugu caansan oo kamid ah Salaahuddin al-Ayyubi ninkaad maqasheen ee taqaanaan saqiirkiina iyo kabiirkiina Salaahuddin al-Ayyubi waa Kurdi la soco waxa kamid ah caalimkii weynaa ee aqoonta badnaa ee ku caanka ahaa Shaykhul Islaam Ibn Taymiyyah Abul Abbas al-Harrani ilaahay u naxariiste waa Kurdi asalkiisu waxa kamid ah qaarigii weynaa sidaan taariikhda ku helay qaarigii weynaa ee reer Masar Abdul Basit asalkiisu waa Kurdi marka dad saa islaamka dhexdiisa iyo muslimiinta dhexdooda qiimo ugu leh buu ka soo jeedaa Kurdistan marka mulla baa la yiraahdaa mala maahan mulladana inta badan waxa la baxaa Iiraaniyiinta iyo Afghanistaniyiinta iyo Pakistaaniyiinta iyo hebel mulla marka Mulla Ali al-Kurdistani nin arintiisu caddahay weey oo aan la gaban oo YouTube-ka iyo Facebook-ka malaayiinta uga xiran tahay ku soo bandhiga bal TikTok-na ku soo bandhigo leeyahay Twitter-na uu leeyahay oo halka la soo taagan oo in ka badan rubuc qarnina arintaas soo waday oo dabul badiilka iyo quraanka dadku cilaajinayay channel-kiisa hadii aad tagtid waxaad arkaysaa inuu taariif qaybta description-ka uu iskaga bixinayo YouTube-kiisa oo ugu qoran tahay doctor waa doctor ما أها قف مالها كسو بودي أو شهادة أنا هيسين هو الدكتور ملا علي كردستاني وحاول قرن من هو الشيخ دكتور ملا علي كردستاني استعرفين ولا تعرفين إياه وميت كداوية حنون نظر لما نوعيده ذاك الدون علوس قرآن جديد كداوية سيدا إن دلا أنت كانسرك دجلا أنت هذا لا أنت قلق مسكحة حنونك حساسية
xanuunada kelyaha kuwa beerka lama soo koobi karo wadnaha dhabar xanuunka difaac la'aanta jirka ku dhacda bakteeriya kala duwan jinka qofka asiiba mushkiladaha haweenka qabsada xagga uurka iyo dhalmada iyo hawlahaas ku tacalluqa qofka cabsida soo wajahad lafa xanuunka adigu xanuunadii kala duwanaa ee aynu naqaanay ee halista ahaa ayaa ku daaweeyaa buli tay waxa qarsoonba ma aha wixiisu muddo 25 sanana waa ku jiray bulee Arbil oo Ciraaq ah baa waxa uu ku leeyahay 2 isbitaal ama 2 goobood oo dadka lagu daaweeyo waa doctor la taliye ah dhinaca caafimaadka nafsiga wax ku daaweeya daawooyinkii ambiyada waa quraanka mid wax ku daaweeya wuxuuna gadaal ka sii raaciyo ku sii qoran waa mid ka fog iskalifaad wax uusan ahayn inuu qofku iska raadiyo sida been iyo sixri waxa lagu wax been yani wax iskalifaada isagoo waxba ku raadi wax maaragtay gaar oo qofka culays oo lagu xiro iyo maal gooni iyo xujo gaani aysan jirin waa majaanan fi sabilillah baa ku qoran youtube-kiisa mulla cali kurdistani oo laatiin iyo carabi ku qoran qofkii taga waa ka arkay arintaas qaybta taariifinta haddii qaybta aan tagno youtube-kiisa community-ga aynu fiirino qof abdeyda waaye wuxuuna tilmaamayaa mar dhow oo manshuurka ama waxa lagu baahiyay maalin ka hor qaybta community-ga wuxuu leeyahay ilaahay idinkiis dhammaan dadka caalamka in badan oo kamida islaamka ayay qaadan doonaan mugdiga ayay ka soo bixi doonaan nuurka islaamka ayna way imaan doonaan kadibna janna gali doonaan biidnillah dhammaantiin waa idin jeclahay akhuukum doctor cali maxamuud kurdistani ibn salahuddin al-ayyubi waa arinta ku sheegay asalka kadib raqamkiisa lambarkiisa whatsapp youtube-ka qaybtana waa ku qoran ayaad ku arkaysaa sidoo kale waa sii arkaysaa kuwa kale lagu sii faafiyay kuwa kale lagu sii faafiyay kuwa kale yani ma aha nin oo wax hadda soo kuday oo soo booday oo dadka ku shaqeysanayo oo wixiisu qarsoon yihiin oo khuraafaad yihiin ma ahan waa nin wixiisu cad yihiin waa nin wixiisi yani ay عدها أرنتيسو أي سأرنتيسو هاين أرن للاقة كبانيو وهي كلامك إلهي واستعمالي قف كلامك إلهي دب أفهمنا ما عبصنا يوحيسنا معها واحد ضاهصون وده سارن يحي آياده استعماله صدح ذااتك أقوب بدن وأمحي وآياده عافيماتك ولي بعجيبك أو حوية وضدك أنها كل الدردار ميناس كوش عافيمات لسان وآخر ستان وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين الله أكبر قرآنك اعتماد عسكرة دب مركو إذا قبصة ميشة كو إذا حسوستان القرآن كانوا هنقضوا وعرر السكر حنو بابيي كيناي حقي لا عرراي نختارك لا عرراي سكرات بانا هاي انت دليل يو حنون كابخي ميو سكرات كستو كو يمدا كلام إلهي سدا ودك انت تقاند ساود وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هذا في صدق وننزل ونسود الدجين أبو إلهي ونسود الدجين موسى دهين تام حاجة ديجنتها هذا مركز آيات آخر سنة إسلامات كذا هذا اللي وسود الدجين وننزل هذا اللي سود الدجين هذا إسكسود بدأ عافمات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة يا عافمات يا رحمة للمؤمنين كوا يقينسا وآمنسا مركب حالنا قفك عن قرآن كعافمات كراد فلا شفاء له ولا دواء عافمات يداوتون ومسقنان مركب ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة كوا الظالمين تا خسارة بيك قدر وأنا يدك أدونكم ما تكونون نفتود الدلمي درسكود الدلمي ددكود الدلمي دينتود الدلمي دلمي قاس مركب اسكرف عنا قرآن كعافمات كسونان فاعي آية وآية سورة بني إسرائيل أما إسراء كجرتا آية صدحات وآد واستعمالها جرتا سورة يونس كجرتا عليه السلام قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الله أكبر آية عجيبة هذا وشعلها يوي بل آية كسي حكتو فيرسو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وده قرآن كاس يفضل إلهي كسي إناد كفر حديد وي عافماتك إلهي كسي إناد كفر حديد وي ودبال دكتد وي الحمد لله أتر حديد وي مركان ننكاس أنا وح خلده وما هيو كمانا أركن وجهي سيكم مقطع كراماتك إلهي كو أيدي قرآن كدتكو كعافماتين يو قدي إن دلاء أنت إلهي كشافي مشكلات
ducooyinka dad badan oo muslimiina ku caafimaaday in dhala'aanta ilaahay uga qaadaa maxaa mushkilada waa mucjisaadka ilaahay oo soo dejiyo koonkan ka sameeyo waay karaamaadka ilaahay awlidiisa iyo asraarta quraanka dadkii fahmay ilaahay quraanka asraartiisa u furay weeye dad badan buu anfaco ilaahay ku daaweeyay boqolaalkaas iyo kumaankumkaas ma soo heshiiyeen sirta ma matalayeen macquul ma marka malaha aan u wanaajino anuu ninkaasi boqolkiiba 90 waa nin saxan quraanka dadku ku daaweeyay waa mucaali ilaahay u soo diray dadkaas ilaahayna ummad badan ku daaweeyay intaasna muuqaalada ka arkayno intaas sanana aan la socdaan mutaabiciinayaan firfirinaya 5 sano ku dhow cidii jaanis u heshay inay tagi karto quraan isaar leh oo quraan ka soo saaro tuftiisaas aaminsan inay aamino ilaahay u aqbalayo fa ahlan wa sahlan ha aado waa khayr laakiin asalkan waxaan aaminsanahay inuu qof quraanku isku daaweeyo hadduu walaalkii khayr u bidana ha ku daaweeyo laakiin dadka yana malaha loo xumayn yaan la tuhmin tuhumo bari aysan meel la ka saareen yaan dadka lagu tuhmin waayo waxa macquul ah adiga quraanka markaad akhrisatid ducada aad u badisid ilaahay baridid in ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaadku ku siin lahaa oo muddo qaata macquula baynama qof kale ilaahay oo hal mar kugu aqbalay arabkiisa kuga ajiibayo mid kale qofka marka uu xanuunka la daala dhacayo isaga niyadiisa og xanuunkan uu saameeyo Soomaa xanuunka inuu meesha baaqi ku sii haado ruuxiga muddo isku dayaya xanuunkan waayo qofka quraanka akhrinaya iyo qofka xanuunka ku jiro waa hal qof hal meel waay baynama qof ka baxsan arintan oo qof kala qofka xanuunka hayn oo quraanku aqriyo saameyntu ay xoog badan tahay quraankan waxa jira daaqo iyo awood energy uu leeyahay aayadaha kala duwan waliba aayadaha qaar oo sir ah oo qof gaar ilaahay fahansiyo ilaahay u furo yani basiiradaas oo saameyn ku leh qofkan iyo xanuunkiisa si gaar qofkan iyo xanuunkiisa si kala gaar qofkan iyo xanuunkiisa anu waxba idin kama qarinayo been idin sheegi mayo waa la socda xanuunadan ruuxiga dadka say u halakeeyeen waa la socda xanuunadan ruuxiga dadku sida ay u halakeeyeen oo baabi'iyeen nolosha uga xireen calaamadahooda iyo habdhaqanka qofka waxaasi hayaan lagu gartana waa fahansanahay qofka markaan saa u fiiriyo quraanka dadku ku daaweynayo oo cilaajinayana waa dareemi kara xaaladiisa marka ninkan qiyaasay oo aan rogrogay cali mulla kurdistani waxa ii soo cad nin ilaahay karaamooyin siiyay malaha inagu saasan ku wanaajinaynaa qofka malaha lagu xumeeyo ma ahan muslimka quraanka ku daaweynaya mucaalijkaas ah intaasoo shahaado helay intaasoo sanad soo shaqeynayay intaasoo hayadoodna ay arintiisa uga maqraati kaceen in ay wax tar leedahay shaqadiisu waxa booqday meeshuu ku lahaa Kurdistan Erbil uu ku lahaa qayb ka socota hay'adda caafimaadka u qaabilsan Faransiiska baa booqatay waxayna ogaadeen oo ka maqraati kaceen in wax tar ay leedahay shaqada uu ninka hayo macnaha dhakhtarnimo iyo caafimaad rasmi ay tahay dhinaca kale ku daaweyntan quraanka waxa ku lamaan fariin caalamka loo dirayo ah quraanku inuu yahay min cindillaahi caafimaadkii asaga rasmi ku jiro ayadoo la dhayeelsanayn dhakhtarka iyo dadaalkiisa iyo isbitaalka laakiin hadda waxaan kaalmaysanaynaa oo ka hadlaynaa rabbigi isbitaalkan iyo dhakhtarkan kalaamkiisi ilaahay waxaynu weydiisanaynaa asraarta kala duwan ee quraankan uu leeyahay inuu noo furo caafimaadna uu siiyo inta xanuunsan qalbiga iyo jirka iyo noloshuba ka xanuunsan yihiin ilaahay inuu caafimaad siiyo subhanahu wa ta'ala ilaahay waxaanu weydiinaynaa muslimiinta dhiban inuu ilaahay dibka ka saaro war ummadda niyada u wanaajiyo saasa khayrku ku jiraaye insha Allah ta'ala aad iyo aad ba umahadsantiin Allah idin xafido horay u socday ninkaas intaasaan jecelaysay inaan ka dhaho oo aniga ila muuqata adiga iyo ra'yigaada iyo waxaad aragteen adiga gooni ku yihiin laakiin anigu wixii markaasi ila muuqatay ayaan ka iri su'aasha sidaasana aad uga caafimaaday oo ah ninka kan masaaxir ba oo falanfalownimo iyo dajaalnimo dadka ku soo jiitay dadku wax u sameynayana oo indhaha ka caafimaadeen ku hayo ku la soo heshiiyay ninka kan ee qacmaha dadka indhaha ka saaraya ee dhahaya indhihii baa ilaahay sababteeda ku shaafiyay oo dhagihii baa Allah u furay oo hadalkii baa ilaahay u furay curyaanimadii baa ilaahay ka saaray oo lugihii baa ilaahay u furay subhanahu wa ta'ala masaaxir iyo jiman wuxuu la adeegsanayay dadkaasa mise waa mucaalij ku daaweynaya jirka iyo ruuxda quraanka rabbi iyo kalaamka ilaahay oo ilaahay awlidiisa karaamada ku ayido ayay arrintaani ka mid tahay waa ogaatay marka
caddaymaha markaan kuu sheegay inaad fahamtay insha allahu tacaala caddaymo run ah oo dhab ah ayaan kula wadaagay baaraka allahu fiikum